Asalaamu calaykum. Waa walaalkiin Maxamed Daacad. Ku soo dhawaada Maxamed Daacad channel. Haddii aad ku cusub tahay, waxaan naga codsanaynaa inaad subscribe noo saartiin iyo like-ta gambaleelka furo. Wixii ra'yigaada noo soo dhiib insha Allah. Sidoo kale maanta waxaan hayaa application kaasoo lacag badan laga samayn karo oo magaciisa la dhaho IT Money. Marka hadda waxaan rabaa inaan linkigiisa waatan linki noocan camal ayuu samaysan yahay. Linkigan ayaan ku dhufanaya. Gudaha ayuu geyn doonaa sida loo furanayo aan ku tusiyo. Money easy, get money easy and online. Waxyaabahan xayisiin waaye. Waxyaabahan dhan xayisiin waaye. Rewards ku qoran sign up ayaa tagaysa meesha gududan. Sign up ayaan ku dhuftay. Kadib hadda waxaa la weydiinaya first name, second name iyo email. First name iyo last name iyo email. Kadib email mar inta gelayso intan waxaa gelaysaa password cusub. Password mar labaad ay ku celinaysaa. Kadib waxaa dhahaysaa sign up ayaan ku dhufan doonaa. Markaan buuxo sign up ayaan ku dhufanaya. Gudaha ayuu na aadin doonaa. Insha Allah dulqaata. Sign up ayaan dhahanaya. Kadib waakan gudaha ayuu keenay. Gudaha ayaan hadda joognaa. Waxaan waa xayisiinadii iyo nidaamka lagu shaqeynayo iyo sharciga dhammaantooda ayaa meeshan ku xusan. Qofka luqadda Ingiriiska garanaya wuu akhrisan karaa. Waxa uu ka faa'iideysan karaa. Waxyaabo badan ayuu meesha ka arki karaa. Sidoo kale waxay leeyihiin company Gmail ayuu leeyahay, number ayuu leeyahay. Waa la xiriiri karaa. Inay su'aal dheer haddii qabto waa weydiisan kartiin. Sidoo dhaqso bay idinka soo jawaabi doonaan insha Allah. Marka hadda waxaan joogaa meesha gudaha ayaan joogaa sida loo shaqeystaan ay tusin doonaa. Waxaan dulqaata meesha la tagi doono financial platforms list ayaa meeshan waayo. Waxyaabo yar xayisiinaya. Shaqooyinkii waxyaabo la qabanay. Laakiin qaybta hoose ayaan taginaa. Financial platforms ku qoran company-yaal fara badan waaye. Marka company-yadaas ayaa laga shaqeeyaa qaabka looga shaqeystana waa mashruuc danbe ayaan ugu soo dhili doonaa insha Allah. Waxay dulqaata insha Allah.